maanta Somaliland ama ku dhacaba Soomaalida dhamaantiiba waxa ugu fara badan cudurrada laga qaado cuntada ama ha noqoto biyo ha noqoto ama caad ha noqoto ama caan ha noqoto ama cunto kale oo aan si fiican loo habeyn ha noqoto waxa laga qaadaa cudurrada fidiya waxa la yiraahdaa foodborne disease cudurrada ay faafiyo cuntadu ay fidiso yaa laga qaadaa oo wax fara badan ama hawlgab ka dhiga ama laga yaabo inuu keeno cudurro dhimasho gaarsiiyo oo u fara badan carruurteena xooggeena soo koraya sababtaa darteed bacdama caynka faa'iidadana uu leeyahay yeelan kartana dhibtaa waxaa muhiima in aynu faa'iidadana ka helno dhibtiisana aynu yarayno waan bilno waxaanu markaa maanta halkan isugu nin waxa weeyaan inaynu dadkeena aynu ku wacyigelino kuna waanino inay qaataan cad nadiifa oo wanaagsan oo caafimaad qaba oo ay qaataan ay macna ka helaan dhibaatadana aynu soo gaarin taa weeye fariinteenu aynu u dirano shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo ah mashruucan aynu wadnay muddo 2 sanooda waxaa naga qayb qaatay oo naga caawiyay gacan naga siiyay mashruuca dhibka nadiifta iyuuda yaa bixisay dhaqaalaha ku baxay waxaana gacan weyn naga siiyay hay'adda FAO ama ha noqoto xafiiskeeda Nairobi ama ha noqoto xafiiskeeda Hargeysa ee uu hogaaminayo Maxamed Jaamac المجتة ويوم حبيسة هالبيسة مجامينها عاد بنت مهدئين دور كشريف كيف فرسموا يكاد قال كذا قيد قاتين شيء أو مشروع عاصو أو ولا ميزك وأمام بلارن ما هو الدمين بدك هيجي وصورة مان وحمان فرق بدنا وقعر له شغالة أنا ضحورها جارهان شغالها هيلكا وما تكشقية قبل الدب وده كشقية لبعضن شغالها حنانة ضحورها يلا تومرين أقولت هيلكا وإما كوضة وكشقية وقبل ده إنه كلام حوش عسى وهيلكا شو ما شو الرئيسة وحلو بهاي هاي إلا سميحين وحوقت مرة بدأ تعطي تعب بدنا أو قلي أي نقلا شقيسي هيدا فاو يسودنا عيب في دقائق وبيحتاج بصورة قل عيب إن أو شرعي صوبنا عن هاد قارو شيء نحن برلمان كان يقول هو كيلا ده بصورة قليل إن صار صار شرعي عاد وبلارن وكان هالكن عندكو هينا واحد كهني بكرك كاسو مانتا لباس كذي وراها وكيلا ده أي شرعيين بالحوين هنا أو صحيحي مركا أو مكيه مانتا شرعي oo u baahan in lagu dhaqmo xeerarka waxa raacsan in wasaaradda xanaanada xooluhu ay soo saartay dikrotooyin ama xeer nidaamyaal tarwa sharci waxa ka farcamay xeer nidaamyaal fara badan oo xaq u leeyahay wasiirka xanaanada xooluhu inuu fidiyay marka waxaan qaybinay dikrotooyin aan u qaybinay dhammaan gobolada dalka sidii ay u suura galay xeerkaas sidii ay u fulay maanta halkan hadda maxaynu isugu nimi marka inta ka soo sheekay sidii ay xeerkaas inuu dhaqan galo ay u fulay inuu xeerka hilibku ay u dhaqan galo sidii fulay ka way ka in isku oo ay ka fulay gobolada dalka oo dhan ka fulay oo ka fulay sariibada hilibka fulay oo ka fulay kawaanada dalka fulay waxaan doonayaa halkan inaan ka xuso sharciga markii la fulinayo ma dib yara wixii kasta oo wanaagsan oo la qabanayaa wuxuu leeyahay carqaladiisa wuxuu ka hor imanayaa dana gaar ahaaneed wuxuu ka hor imanayaa dana kooxan waa xaqiiq waa dhici kartaa 300 oo neef oo maanta neef oo ariga oo la qalay Hargeysa lagu qalay ama 10 geela oo lagu qalay Hargeysa lagu qalay oo boqolkiiba laga yaabo 20 inay laga helo ama marka intaan la qalin ama marka la qaro laga helo cudur laga helo oo dhakhtarkii baariya uu yiraahdo neefkaas dan uma jirto cunista hilibka u jirto qofkii lacagta soo geliyay waa laga yaabaa inuu carqalad weyn oo mid dhaqaale iyo mid wacyigelin aba aw dhibaato weyn kala kulmo marka sababta awgeed ma hawl yaraysan u hirgelino sharciga waxaynu laakiin u baahannahay inaan iska wada kaashano dhammaanteen intay saamayso midna madaxda dawladda wasaaradaha kala duwan ay saamayso madaxda gobolka hay'adaha nafaqo ee gobolada dalka oo qayb weyn ka qaadatay
waxaana weeyaan waxyaalaha ugu faraha badan leh maanta nafaqo waajibkeeda oo maanta iyaga ah kuwa matala hiliblayaasha matala oo waajib gaar u saaran in iyagu ku hawl galaan waan adkaynay ku celiyeen nafaqo hay-adaha ka wakiilka ah hilib qalista gobollada dalka ee waaweyn gaar ahaan meelaha hilibka lagu qalo gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo Burco iyo Ceelgab gobollada waaweyn ee maanta hilibka badan lagu isticmaalo inay nafaqo dadka ku wacyi geliso ama hiliblayaasha ku wacyi geliyaan in la iibsado neef hilibkiisu ka bari yahay cudur ka bari oo la keenay seeladii oo dadkeenu cunaan hilib caafimaad qaba aan ka helo faa'iido ka helo nafaqo carruurteena ka helo laakiin aan la qanin cudur laga yaabo in lagu helo calool xanuun shuban marka dambana keeni kara carruurteennii keeni kara geeri ama dhimasho keeni kara marka fariintan maanta u gudbinaa dalka waa taa taynu nafaqo u gudbinaa waa taa waxaa jira wararka soo baxaya oo kale oo fariinta aan gudbiyo marka nafaqo ilaahdo waxa way madaxda gobollada dalka warasaabyada iyo maayrada waa door shariif ay ka qaadanayaan waxaanu qaybinay 23 wiilal iyo gabdho isugu jira oo ku takhasus ku soo qaatay hilibka yaan u dirnay gobollada waxay shaqaynayeen muddo 3 bilooda waxaa ka hor yimid runtii dhibaatooyin aan filaynaba inay ka hor imanayaan saaka warbixinta inaan madiisinay waxay yiraahdeen marka neefkii la qalo qolooyinka hilibka 10 neef bay wuxuu dhibayaan qof oo hilibka gowracayo soo qalaaya marka naan hilibka ma caafimaad qabo waxay oranaysaa hilibka baan u malihi ee waa la iibtay marka way adag tahay in hilibkii la yiraahdo hilibkaagan waa la tuuray waqti u baahan tahay wixii kasta cusbana waqti u baahayay weelada tixgelintiisa laakiin maalinba inta laaba hor loo qaado way boqolkiiba 10 haday inoo suurta gasho saadabana boqolkiiba 20 inay taasa way muhiimadda ugu weyn tan labaad waxa weeye in dhammaan dadkoo dhama iska kaashadaan oo ay iska wada kaashadaan dhinacyada ay saamayso haddii qolo quri ka maqan tahay inoo suura gelmayso waxaynu doonaynaa kow wasaaradda xanaanada xooluhu waa inay hogaaminta yeelataa ay ka qayb qaadato laba wasaaradaha kale saameeya sida wasaaradda arrimaha gudaha oo haddaanay la shaqayn barasaabadu oo haddaanay la shaqayn maayaradu oo haddaanay la shaqaynin bulaysku aanu la shaqayn suuro geli maayo inuu mashruucan hirgalo waxay u baahan yihiin door shariif ka qaataan wasaaradda warfaafinta yaa door shariif ka qaadanaysa warbaahinta madaxa bannaan oo iyaguna ah institution iyada ugu qiimaha badan leh hadday ayna ka qayb qaadan ayna dadka wacyigelin ka siinin hilibka inuu yahay waxyaalaha inta wararka faraha badan ee kala aynu ee siyaasadda aad ugu mashquulayn waxyaalaha mujtamaca wax taraya oo ah ugu weyn ay tahay cuntada qofka uu cunayo oo ah wax tara haddii ay ka qayb qaataan warbaahintu awaan ka qayb qaataan sharci dejintu waa inay ka qayb qaataan wasaaradda cadaaladda oo maxaakiimta iyo garsoore macluumaad iyagu sharcigii hayaan in qofkii sharcigii lagu dhago awal salafin wax u saldhig dadweynaha cunaya laftiisa hilibka cunaya waa inay kula dardaarmaan oo ay yiraahdaan hilibkii ay arkaan marka aan meel kale bidaantiisa la arko hada kayso inuu hilibkii aan la eegayo dugsi bilaysa uu kushan yahay waxa uu yiraahdaa hilibkan sida aad hilibkii ka bedel waa inuu ka qayb qaadan kara dadweynaha hilibka cunaya marka dhamaanteed in la iska kaashanay waxaynu doonaa in gacan la siiyo dhalinyarta ka shaqeynaysa hilibka ka shaqeynaysa nadaafadeeda ka shaqeynaysa in gacan la siiyo maanta halkan waxaan isugu nimi mar labaadna waxaynu doonaa inaynu furno waxaa jira waraaqooyin aanu qaybinayno ay qaybinayaan dhalinyaro volunteerisa ay qaybinayaan oo la doonayo in lagu dhajiyo meelaha muhiimka ee hilibka ay saamayso hadday noqon lahayd sariibadaha hilibka noqon lahayd hadday noqon lahayd kawaanada noqon lahayd hadday noqon lahayd hudheelada hilibka lagu cuno oo gudbinaysa fariin message oo ah inaad u sheegto waxa weeye caad caafimaad qaba hal waxaan maanta doonaa fariinta waxa weeye caad caafimaad qaba aan cun caad caafimaad qaba aan cun mar hadday caad caafimaad qaba doonaan cuno waa inaan caad aan caafimaad qabin aan la keenin si taa loo hirgelina waa inuu dhammaanteen aan tagnaa taasaynu fariinteenu tahay aad iyo aad mar labaad
فين كي جامبر دي يجي تطلع يجي